xilli 17 November ee sanadkan la filayo in magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu qabto doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee muddada 4 sano ee soo socota maadaama maalintaasi ay ku eg tahay waqtiga helxeynta madaxweynaha ayaa waxaa magaalada laga dareemayaa diyaar garowga ugu dambeeyay iyo qabanqaabo ku aadan doorashada marka aad marayso wadooyinka waaweyn ee dhaxmara magaalada Baydhabo waxa hindhahaagu ay qabanayaan boorarka musharaxiinta oo lagu daawacay sawirka musharaxa iyo halku dhig isagoo u gaar ah oo ay ku soo jiidanayaan qulubta shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya musharaxii sagaalaad ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya 4 sano ee soo socota ayaa maanta ku dhawaaqay musharaxnimadiisa iyadoona munaasabada uu kaga dhawaaqayay musharaxnimadiisa ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah 149 mudane ee codkooda lagu tashanayo odayaal dhaqameedyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya musharax sagaalaad oo lagu magacaabo Dr. Ibrahim Maxamed Nuurow oo ku magac dheer Mulla oo ka hadlay munaasabada isu soo sharaxayay ayaa ballan qaaday in si cadaalad ah uu ku hogaamin doono shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya haddii uu ku guuleysto doorashada dadka ka fayl bulshada hoobiyo ka qeyb qaadan wal fayl oo sidii la faday ama kooyaan saas daraadii yama nis aragayni in muhiim ah in bulshada tiidana ana anas halgaam umur naf imal sidii wadankan idadkan xaaladana ka fayl harfad haddii meel kasta maamulkan degmo tuuro dhan soo banilaaro wasiir boqol wasiir suubsan hal madaxweyne iyo intaas madaxweyne keegna taa fadana suubsan may booha wal ma kordiyas laakiin may liska faday tay oo isla xisaabtan ka dhisan insha Allah intaas suurto geli doon oo bilaay raala kana 17 November ee sanadkan ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee muddada 4 sano ee soo socota 149 mudane oo wakiilka shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wax dooran doona waxaana wali aan la magacaabin guddiga doorashada oo dejin lahaa habraaca doorashada